Computer components waxaynu qaadanayna isku dhashida computerka hore waan usoo qaadanay balse iyagoo faahfaahsan hadda ayaan qaadanayna ujeedooyinka ama hadafka aynu ka leenahay ama learning objective maarata hadafyada casharkan aan ka leenahay oo baranayno kow explain the CPU inaynu sharaxno CPU and its role iyo doorka uu ku leeyahay differentiate inaynu kala saarno between farqiga u dhaxeeya RAM iyo ROM inaan kala qaadno identify inaynu cadeyno input devices qalabiyada la yiraahdo inputka iyo their use iyo isticmaalkooda describe inaynu qeexno output devices qalabiyada outputka and their use iyo isticmaalkooda describe inaynu qeexno the characteristics astaamaha and differences among the types of memory iyo farqiyada u dhaxeeya noocyada memoryga ugu horeyn processor waa maxay the system unitku systemku is the box waa sida boxka dad protectors kaasoo ka hortaga internal electronic components isku dhashida danabyada ee gudaha from damage kaga hortaga dhaawacyada it contains wuxuu ka kooban yahay the central processing unit oo CPU ah and memory iyo memory ayuu ka kooban yahay processor muxuu yahay is a chip attached waa qayb ku dhagan to the motherboardka ayuu ku dhagan yahay and it interprets wuxuuna turjumaa and carries out una qaada the basic instructions shaqooyinka asaasiyaadka that operate a computer taasoo computerku uu qabto what does the CPU do CPU-gu muxuu qabtaa muxuu sameeyaa the heart of the computer system qaybta ugu muhiimsan systemka computerku is the central processing unit waa qaybta loo yaqaano CPU-ga it contains wuxuuna ka kooban yahay the arithmetic logic unit ayuu ka kooban yahay ALU ah and the control unit labadaas ayuu ka kooban yahay arithmetic logic unit muxuu qabtaa muxuu yahay executes wuxuu fuliyaa most computer operations howlaha ugu badan ee computerka halka control unitka acts as u shaqeeyo a nerve center sida xarunta neerfaha oo kale that sends control signals kaasoo soo dira fariino to all other units dhammaan unitiyada intooda kale